muuqaalkan waxaan jeclaan lahaa inuu gaaro qof kasta oo Soomaali ah oo Muslim ah. waxaana ka sii jeclaan lahaa in aayadahan soo socdo inay xifdiyaan. waxaana ka sii jeclaan lahaa saddexdan aayadood oo soo socdo inay ku dhaqmaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. aayadda koowaad waxay ku jirtaa suuratul maa'ida, waa suuradda 5aad aayadda 2. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. isugu kaalmeeya samaha iyo dhoorsiga, hana isugu kaalmaynina dembi iyo colnimo. adoo aaladaha isticmaalaya hadduu muuqaal kaa soo horbaxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka ahayn, waxa koowaad oo kula gudboon waxa waaye inaad block saartid, like-na ha saarin, commentina ha ka bixin, share-na ha dhihin. sababtoo ay tahay aayaddan ayaa ka soo horjeysanaysaa haddii like iyo comment a ka bixiso. qodobka kale oo aada muhiimka u aan u baahanna inaan fahanno dadka aaladaha isticmaalow waxa weeye muuqaalka ha dhammaysanin. muuqaalka markaad la dhammaysto viewskiisaa kacayo. dad badan markay fiirsadaan viewskii uu kaco muuqaalkii farahu ka baxaya. aayadda labaad oo aan jeclaan lahaa qof kasta oo Soomaali ah oo Muslim ah inuu xifdiyo oo aan ka sii jeclaan lahaa inuu ku dhaqmo waxa weeye waa aayaddan oo ku taala suuratul hujuraat. suuratul hujuraat waa suuradda 49aad aayadda 6. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy kuwa xaqa rumeeyow hadduu idinla yimaado faasiq war, hubsada si aydan dad u dhibin ogaansho la-aan, markaasna aada shallaydaan waxaad fasheen. muuqaal intaadan faafinin, intaadan sheer dhihin, intaadan copy link aadan ku dhufanin, waxaad iska hubisaa warkan la sheegayo ma run baa, ma been baa, maxaa ka jira. hadduu been yahay ama wax uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka ahayn, ha faafinin, dadka ha la wadaagin. aayadda 3aad oo aan jeclaan lahaa qof kasta oo Soomaali oo Muslim ah inuu xifdiyo oo aan ka sii jeclaan lahaa inuu ku dhaqmo waxa weeye waa suuradda 3aad suuratul cimraan aayadda 110. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar. waxaad tihiin ummadda u khayr badan, ummadda ugu fiican ayaa tihiin. waxaad fartaan wanaagga waxaana reebtaan xumaanta. haddii xumaanta la reebi waayo ummadda ugu wanaagsan ma noqonayno. haddii wanaagga aan isfari waynina ummadda ugu wanaagsan ma noqonayno. baryahan waxaan ugu soo batay hadallo fara badan oo dad ay leeyihiin maxaa uga soo hadlaysaa qof xumaan soo dhigay Facebook iyo TikTok iyo aaladahan kale. qofka sidiisaba xumaan hadduu baraha bulshada keeno, xumaantaas meesha waa lagu sixi karaa. weliba muuqaalka hadduu faraha ka baxo, waa xumaantaas waa in lagu saxaa meesha ay taalo. maalan hadda qofka imaamka markuu salaad uu tujinayo hadduu aayad gafo, ma salaada markii laga baxaa la sixi mise salaada markii lagu dhex jiro? salaada markii lagu dhex jiraa la sixi, waana la ogi. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddan wuxuu noogu sheegay, aayaddan wuxuu noogu sheegayaa, uu noo tilmaamayaa wixii xumaana in la reebo, wixii inaad ka hadashid, wixii inaad block saartid, wixii inaad reebtid, intii awooddaada ah inaad reebtid. waxyaabaha aadka oola yaabay oo aan ku arkay TikTok-ga, Facebook-ga, Instagram-ka, Snapchat-ka iyo YouTube-ka waxa weeye dad waxaad arkaysaa heeso oo isqaawinayo oo isdhex yaacayo, waxaa ku xiran 1 milyan oo qof. waxa dadka meesha gaarsiiyana waa dad fahmi waaye
saddexdan aayadood aan hadda soo sheegay. qofkii aayadahan fahansan oo xifdisan oo ku dhaqmo muuqaal xun markuu ka soo horbaxo isla markii blog buu iska saari wixii suu u faafin. laakiin xumaanta markay faafto ma noqonayna dad wanaagsan. caradii ilaahay baan ugu dhacayso. mar badanna waxaan isweydiinaa Soomaaliya maxay horumar la gaari la'a? Soomaaliya waxay horumar la gaari waysay waxa waaye waxa TikTok yaala hala fiiri, waxa Facebook yaala hala fiiri, waxa Instagram yaala hala fiiri, waxa Snapchat yaala hala fiiri, waxa YouTube yaala hala fiiri. waxa ugu badan wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raali ka ahaan. waxa ugu badan waxa weeye wax ummadii hore lagu soo rogay oo ummadii hore ay ku rogmeen. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo dambi dhaafo. intaas ma dhilaa wabillahi tawfiiq.